daawadayaal sidaad la socotaanba aad u jeedaan waxaan joognaa garoonka Stadium Muqdisho oo ah garoon caalami ah garoonka ugu weyn magaalada Muqdisho marna ah garoonka ugu weyn Afrika laga yaabaa in dhowr iyo 10 sano ka hor halkan ay saldhig u ahaayeen ciidamada midowga Afrika laakiin ka bixitaankii ciidamada wasaaradda isboortiga waxay isku taxaluujisay in garoonka dib u dayactir lagu sameeyo maanta saddex qaybood ayaa la dhagax dhigay oo ah xaruntii xiriirka kubadda cagta hotelkii iyo xaruntii centerka oo tababar ay ku sameyn lahaayeen garoonka sida u jeedaanba qaybihiisa kala duwan dhan dayactir ayaa lagu sameeyay iyadoo uu joogo injineerkii garoonka dhisayay garoonka qaybo kala duwan aynu soo booqan doonaa haddii eebu yiraahdo oo aan rajayn doonaa in aad na raaci doontaan oo qaybaha kala duwan uu garoonka ka kooban yahay halkan waa VIP-da halkaasna waa saacadii marka si aad u jeedaanba halkan waa qaybta VIP-da oo ay inta badan madaxda ay fadhiistaan oo qaybaha dhan dayactira lagu sameeyay halkan qaybta tunnelka oo ay ciyaartooyda ka soo baxaan laakiin lama isticmaali doono sida ay wasaaraddu sheegtay oo tunnel kale oo casri ah ayaa la sameyn doonaa garoonka qaybo badan ka dhiman oo dayactir ah oo in interlog qaybtaasi lagu sameeyo marka qaybo kala duwan oo garoonku leeyahay oo si aad u jeedaanba tabeelayaashan waxaa la sameyn doonaa in nala lagu dhejin doono halka qaybtaasna qaybta saacadda ay noqon doonto albaabada inta badan way furan yihiin marka inta badan maanta booqashada waxay ahayd sidii garoonkan u ahaan lahaa garoon aad iyo aad isbeddel weyn lagu sameyn doono marka qaybaha kala duwan ayaan sii fiirin doonaa Stadium Muqdisho haddii aad maqli jirtay in halkan ciidamo amisom ay fadhiisan u ahaan jirtay hadda ma aha qaybtan kale waa erit waa meel aad iyo aad u qurux badan inta badan waa la dhisay garoonka oo baaxadiisa iyo sidoo kale qaadkiisa aad iyo aad u weyn yahay baabuurkan waa baabuur loogu talagalay in lagu simo cawska iyo sidoo kale carrada oo casri ah oo lagu talagalay in lagu sameeyo marka la fiiriyo lagu simo garoonka qaybihiisa kala duwan oo inta badan injineerada iyo dhammaan way joogaan marka isagana qayb ayuu ka yahay waxyaabaha ku cusub garoonka xasan marka hore Muqdisho Cable Sport ku soo dhaw marka xigta garoonka gabagabo u dhow yahay heerarkiisa kala duwana waa la soo dhameeyay maxay isdhihi kartaa hadda garoonka ciyaarihii rasmiga ahaa ma ku bilaaban karaan xaqiiqdii waa farxad u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogto iyo kubadda cagtaba maadaama garoonkii tuuladii isboortiga dalka Soomaaliya maanta u jeedid inay heer gabagabo marayso waana aaminsanahay in dhalinyaro badan ay ka faa'iidi doonto sida aad la socotana Soomaaliya dhibaatooyinka haysto waxa kamid ah xiriirka Soomaaliya kubadda cagta hore u sheegeen wasaaradii hore u sheegtay in ciyaarihii internationalka ahay ciyaartii homeka ku ciyaar lahayn wadamo kale ku ciyaarno ama away ku ciyaarno taas ayaa ugu muhiimsan horta inaan heli doono haddii Ilaahay yiraahdo hadda wixii ka dambeeyo insha Allah markii ay imaato caalamka soo fiiriyaan FIFA kale imaato tijaabiso ama garoonka inspection ku sameeyso la ogolaado in garoonka uu yahay mid international level ah aadaan taas ugu faraxsanahay waxaan imaan doonta in kubadda cagta Soomaaliya ay sare u sii qaadato sababtoo ah mar hore ayaa ugu dambeysay dadkii waaweynaa oo maanta waqtigii hore dawladdii hore ee kacaanka joogay in dalka garoonkan uu yimaado kooxaha dibadda ah amba wadamo kale ay ku ciyaaraan laakiin dhalinyarada hadda jiilka cusub weligood ma aysan arkin wadan home-kooda lagu ciyaarayo dalka Soomaaliya amba dibadda looga yimid fursadaas ay heli doonaan haddii Ilaahay yiraahdo waa mid aad ugu faraxsanahay anagu mahad celinayo Ilaahay ka suko u mahad celinayo dawladda Soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada isboortiga xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo gobolka Banaadirbo garoonkan gacan laga wada geystay aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay hambalyo inta guushan keentay oo dabcan way imaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo sida la socota garoonkan waa garoonkii ugu weyn ee dalka Soomaaliya waxaana jiro laba garoon kala hadda garoonka jaamacadaha iyo garoonka Engineer Yuriso Exconis oo ciyaaro ayagan horyaalka Soomaaliya kubadda cagta ka socdo tartanka degmooyinkan loo qaban jiray dabcan degmooyinkan oo laga faa'iideysan karaa in garoonkan ciyaarahooda uu qabto si ay u jeedid garoonkan uu qaad weyn yahay magaalada Muqdisho aad iyo aad ay macna u soo buux dhaafisa tartanka degmooyinka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir waan rajeynaa insha Allah in ciyaaro qaar lagu qaban doono dawladda booqashadeena maanta Stadium Muqdisho oo aynu ku soo kormeereynay oo wasaaradda iyo wafdi ka socda ay soo kormeerayeen intaas aynu ku soo gabagabeynayna qaybtiisa koowaad qaybtiisa labaadna waa la socon doontaan haddii eedbe idmo maalmaha soo socota Cabdulla Xasan Baliil Muqdisho Cable Stadium Muqdisho